ma rabtaa inaad taajir noqoto ma la yaaban tahay sababta aanadu ahayn taajir kaliya ma aha dad badan ayaa jecel inay noqdaan taajiriin balse ku guul daraystay inay rumeeyaan riyadooda sida ay mar uu noqon lahaayeen taajiriin ku oran maayo khamaar ciyaar si aad u noqoto taajir ama se guurso wiil ama gabadh maal qabeen ah si aad u noqoto taajir sidoo kale ku siin maayo talooyin guud mar aad hore u ogeyd balse waxaan ku sheegi doonaa sida saxda ah ee loo noqdo taajir halkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa 7 talaabo oo haddii aad samayso aad si heer sare u kordhin doonto fursadaha aad ku noqonayso taajir talaabada koowaad yeelo damac iyo rabitaan aad u sareeya haddii aad rabto inaad taajir noqoto waa inaad yeelataa damac iyo rabitaan aad u sareeya aad ku noqoto taajir si aad u ogaato inaad leedahay rabitaan iyo damac aad u sareeya weydii su'aalaha naftaada sawir cad oo maskaxda ama ka haysata guriga iyo gaariga aad iibsan doonto mustaqbalka iyo nolosha aad ku noolaan doonto haddii alla kugu simo wax kasta ma u samaynaysaa oo ma u huraysaa sida aad u kordhin lahayd dakhligaaga ma samaynaysaa dadaalkaaga ugu fiican ma u dagaalamaysaa har iyo habeen ma seexanaysaa wax yar ma isku dayaysaa wax cusub maalin walba mise waad ka duwan tahay sida oo ma kala jeclid dad badan ayaa rajeeyay inay noqdaan taajiriin laakiin soo ma jeclaan inay noqdaan taajiriin haddii aad dhab u doonayso inaad noqoto taajir waa inaad seexataa wax yar shaqaysaa wax badan wajahdaa khatar kasta u hurtaa wax kasta lana tartantaa qof kasta oo istaaga wadadaada markaasuu ma noqonaysaa taajir dhammaan dadka taajiriinta noqday waxay u fikri jireen sidan si la mid ah talaabada labaad hagaaji fikirka aad ka haysato taajirnimada aaminna inaad u qalanto haddii aad aaminsan tahay inaad wax qaban karto waad qaban kartaa balse haddii aad aaminsan tahay inaanad wax qaban karin weligaa qaban maysid aamin inaad taajir noqon karto kana saar maskaxdaada fikradaha xadidaya fursadaha aad taajir ku noqon karto sida lacagtu waa shar nasiibu ma lihi lacagta ama ma haya lacag ugu filan oo ku bilaabo ganacsi fikradahani ma aha oo kaliya qaar hoos ku dhigaya balse waxay ku diidayaan inaad wax isku day ah samayso taasoo ku horseedaysa inaana taajir noqon haddaba si aad u noqoto taajir ka saar maskaxdaada fikradaha taagta daran ee curyaaminaya hadafkaaga kaana hor istaagaya inaad taajir noqoto talaabada saddexaad bilow ganacsi aad leedahay bilaabida ganacsi aad leedahay waa wadada ugu dhaqsaha badan ee lagu noqdo taajir weligaa taajir ku noqon maysid haddii aad qof u shaqayso ku dhiiro